laakiin wacaysa idin baraaya waxay taa qabiilkeeda dadka idinka baraaya ana eedaday macaan ii dhasho madiina maxamed cabdulla dureeshe aa dhasho laki dhagtiina fura ana sahra maxamed cabdulla dureeshe aha midu kugu soo celinaa madiino maxamed cabdulla dureeshe iyo maxamed cabdulla dureeshe laki hooyadeeda iyo aniga aabahayga waa isla dhasheen ilma abtiil meedaynu nahay eedaday macaana ii dhashay qabiilkeeda markii idin baraaya laki waa naag yamaniyad ah oo carab ah oo xadradmuud ah qabiilkeeda laakiin reer abtiyaasheeda kusoo dhex kortay reer abtiyaasheedna laki kama faanto inay ku faanta mooyaane soo yaac bliis sheerta xamdaay waa iska hadashay xamda gabadha la dhahay waa iska hadashay horta nin waliba qabiilkiisa inuu ku qanacsanaado ku faraxsanaado alxamdulillah aad iyo aad u fiican tahay ma fahanteen maanta ani gabooyo waxba kama sheegayo gabooyo waa dad jiro waa qabiil waa dad sharaf leh waxba ma ka sheegayo laakiin naagtan xamda la leeyahay dad ku soo dhagayso dhab soo dhaha nimca yaasiina fakadee dhab soo dhaha laki aynu haynaaye dhab soo dhaha nimca yaasiin waxay naag dadkeeda raadinayo walaasheed iyo hooyadeed raadsanayo ee aan rabin ba ehelkeeda ahayd iyo gabadhan maxaa isaga dana laki dadkeeda waa jecesha laki hooyadeed se u jecesha haddaad aragto maaraaba wax og yaac soo yaaqay lifekan sheergaree weligay social media hamaba soo gelini xamda ay soo gelisa xamda iyo damiir xumadeeda laki reer abtiyaalaynu u nahay laki reer abtiyaasheed ma diidna markay galgal ay soo yaa gaala magacii masiibo maalinay ku raacaan gaalgale axmed gaaldil u ahay gaaldil iga dheh ma fahanteen hadda qabiil iyo gadaal iyo waxba uguma noqonayna laki uun baan ka hadlaynaa laki ina aniga eedaday ii dhashay oo reer abtiyaale ay nuux maxamuud u yihiin ayadana naag carabiyada ay tahay oo yeman ay ka tahay oo xadramuud ay tahay aan ku cadaynaya marka leedahay teeda kale social media biri dadkeeda soo gelinayo qabiilkooda sheeganayo annaga fakadnaa manihin dad qabiilkooda inkiraya ama duugduugayo manihin ma fahanteen yaa marka saas waayo xamdana ay dhigeeda ka hadashina isku kalsoonaateeda daayada naa gabooyo taagan gabooyo waayo qabiilkeeda waayo soo way ku faani kartaa qabiilkeeda laakiin ma aha dad kale inay dhadhadhab taada kale waxaaba iigu daran xaliimo gobeed ay tiri xaliimo gobeed waa naagee xaliimo gobeed yaa u taqaanaa anaa hadda ku baraya xaliimo gobeed waxay tahan kuu sheegaya naayaa xaliimo gobeed waa naag nuux maxamuude laakiin reer abtiya loo yahay saaxiib eedaday macaana dhashaan ku leeyahay caaw dhan kugu soo noqnoqona xamdaay nin waliba qabiilkiisa inuu habbi ku yahaadaa fiicnaada badante teeda kalena qabiil hadda iyo gadaalmaba ugu hadlaan waaba yaraayba markay dagaalada iyo waxaas dhacayeen laakiin teeda kalena qabiil waliba wax leh markaa leedahay boona jirta boonta subacaada joogtaa abgaalka kama soo qaxin boontooda way haystaan waayo aniga aan u soo qaxay waayo aniga lay soo eryaday nin waliba ninkuu yuhuyaa ma fahamta saaxiib aniga hadda wax alla waxaan ahaaba ku qanacsana laakiin waxaan kuu sheegayaa laki inay carabeed tahay eeba qabiilkaa hadda ku xilminays xataa ay ahayn abtiyaalaan u nahay wayna jeceshahay annagaa soo korsanay laki annagay nagu soo dhex kortay haddana carabteediyaa kuu soo safan doontaa xaggee geli doontaa boqol waxaa soo socota oo yemaniyad aha kuu soo socotee xamdaay xaggee gele marka waayahe xabiibtiye xaggee gelaysa carab oo dhanaa kugu soo socoto yaa aniga hadda qabiil ahaan uma soo hadlin laakiin waxaa la gooskiis lahaayo jariidka kama qoslaa la dhahay xamda ma fahantay xamdaay waxaa tahaba waxaa la yiri gooskiis lahaayo jariidka kama qosla ma dhihi karaa ma dhihi karo wallaahi bilaahi habarteed kuma dhicin ma fahantay aniga eedaday macaan gabadhay dhasho walaashayaa soo qabsatay marka social media waa soo galaya hadda waa leela yaabaa biri waxaa leeleeya naa sahraay maxaa ku qaaday naa maxaa ku soo geliya naa masaanaa ahayd waa soo galaa maxaa u soo geli waay asaa walaashayaaba la heestaay ana kusoo caan baxna ma isdhooye maanta ma fahanta xabiibti ana walaashay macaan waaye inaan ka hadla garaa u leeyahay
adigaabana soo raasanayo dadkeedii aan biri soo qabanayo social media soo gelina waxay tahay na adiga anagana soo qabsanin annaga hadli karna ma fahantin ya marka xamdaay waxaan ku dhihi lahaa walaashay qabiilkaaga isaga qanacsanaa oo habi ku ahaa ma fahanti alxamdulillah maanta qabiil wuxuu sheegayaa iska yarba laakiin gabadhaas aan kaaga dhacay laki iyo waxay tahay inaan Soomaali baro ma fahanti marka inaan ku sii dheeraadana live ka ma rabo hadda waa kaasahe xamda way arki doontaa ya hawadan iska baranaynaa marka waxa waaye xabiibti waxaan kugu rajeynayaa caafimaad